هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، halkan aynu joogna waa masaajidii Kuweydiga Hargeysa. masaajidka Kuweydiga waxa la aasaasay 1979 bishii lixaad kowdeedii. waxa uu dhisan yahay 40 sano masaajidku. 40 sano masaajidku dhisnaa wax weyn oo laga qabtay habay yaraatay ma jirto. iminka wuxuu bilaabay masaajidku inuu dumo oo marka maalin kasta wax marka dumitaana mooyaan wax kale aan ku soo siyaadinba. sidaa daraadeed waxa weeyaan masaajidka waxaanu ka codsanay dadka muxsiniinta ah inay ka qayb qaataan masaajidka oo qof kastaaba wuxuu kaga qayb qaadanaya ha yaraato ama ha weynaatee inuu ka qayb qaato. waayo adduunyada qofka muslimka uu ka tagaya waxa weeyaan waxa uu baaqi ku noqonaya wixii uu sii horumarsaday. ilaahayna wuxuu leeyahay ma cindakum yanfadu wa ma cinda Allahi baaq. wixii agtiina yaalay waa gabagabo dhamaanayaan. waxa baaqi noqonaya waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa yaala. masaajiduna waxay kamid waxyaabaha baaqiga ah kamid yihiin ee sadaqatul jaariyada ah. marka qof kasto muslim waxa laga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan waxay bixinayaan lambarada shaashada ka soo bixi doona inay markaa ku soo hagaajiyaan hama yaraato ama weynaato qof kasta inuu ka qayb qaato gudiga dibadba. saasaan ku codsanaynaa. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. sidaas sheekh maxamed ka warramay masaajidka waa gurmad ma socda. gurmad baan soo gaarsiinayna sida sheekhu inoo sheegay taariikhda dheer ee masaajidku dhisnaa wax weyn oo laga qabtay ma jiro. sida darteed wuxuu noqday masaajidkii inuu imika soo dumo oo masaajidkii kolo muddada dheer oo dhisnaa aan waxba laga qabanin wuxuu gacan ku hayn bay wax waliba u baahan yihiin. waxa imika ku yimid masaajidkii in dhibaato ay ku timaadiyo soo dumid masaajidkii si aanu uga bixin halkii uu noogu jiray iyo xaafadii oo weynaatay iyo magaaladii oo weynaatay oo masaajidka xataa imika cadeeda lagu tukanayo waxaynu u baahannahay masaajidkaasi inaanu naga dumin oo aynu ka qayb qaadanno oo aynu dhisidaankiisa imika uma baahna wax yar oo lagu taataabto. wuxuu u baahan yahay gebigiisaba in dhulka la dhigo oo dabeetana sidii markii hore loo bilaabo loo dhiso. arrintaasina waxay u baahan tahay juhdi weyn bay u baahan tahay iyo maal badan bay u baahan tahay. hase ahaatee haddii aynu ka qayb qaadanno oo aynu ku dadaalno gaar ahaan dadka muxsiniinta ah ee wax kari karaya inay ka qayb qaataan masaajidkaasi iyo xisaabta ku baxaysa way iska sahlaanaanaysaa. marka ajriga iyo xasanaadka aan ka qayb qaadanno gurmadkaasi aanu soo gaarsiinayna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay nagala soo qayb qaataan. وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. waxaan doonaynaa inaan idin ogeysiino in dib u dhis lagu samayn doono masjidka jaamicul kuweyti masaajidka kuweytiga la yidhaah ee ku yaal magaalada Hargeysa xaafadda Cabaaye oo muddo dheer dhisnaa oo la doonayo dib in loo dhiso maadaama uu dhul wanaagsan oo weyn haysto in dib loo dhiso. walaalada muslimiinta wax caado ah inay masaajidada iyo arrimaha khayr kale isugu tagaan oo ay wada dhistaan si khayrku u camimo oo uu wada gaadho.